السلام عليكم soo dhawaada asxaabta Ramadaan Kariim waa 10 tobnaad oo taxana aynu ka hadli doono barnaamijka Premiere Pro shiraaso si firo uga baxay channelka waxa idin soo jeedin doonaa anigoo Xaydar maanta waxaynu sharaxaad guud ka bixin doonaa waxa loo yaqaan proxies haddaynu guda galno casharka proxies haddaad isticmaasho waxa ku sahlanaanaysaa inaad muuqaalkaaga si dhibeer u jarjarato tusaale ahaan waxaad jarjaraysay muuqaal 4K oo aad culus markaad keentay timeline-ka aad damacday inaad jarjarto waxaad aragtay program monitor-kii oo taagan macquul noqon mayso inaad wixii jarjarto haddaadan arkayn oo si toos u arkayn way istaagaya program monitor-ka markaan tusaale ka bixino markaad soo import garaysto muuqaalada soo import garayso muuqaal aad culus way kuwa kan marka waan tusayaa qaabka uu istaagayo program monitor-ka waxaad geysay thumbnail-kii marka haddaad aragto aan halka start ku dhufto waad aragtaa si uu istaagayo macnaha wax toos u soconaya maaha oo si smooth u soconaya wuxuu sameynayaa frame by frame ayuu istaagayaa tusaale ahaan muuqaalkan waad aragtaan muuqaalka waa nin push up sameynaya markaan ku dhufto xabaarka dib u soo baxaya waad aragtaa meeshii way taagan tahay already waxaan ku khasbanayaa inaan isticmaalo proxy isagu wuxuu ka dhigayaa muuqaalkan halka kaaga muuqda mid khafiif ah oo aad ku jarjari karto markaa timeline-ka program monitor-kana aad ka arki karto si dhib yar ayaad u jarjaranaysaa hadhowna proxy uu iska qaadaysaa waxaad geysanaysaa meeshaad caadiga ahayd ku export garaynaysaa marka qaabkee marka proxy u sameynaya markaad saa usoo import garaysto muuqaalkaagii tusaalehaan list view aan ka dhigo marka list view ka dhigto waxaan dooranayaa muuqaaladaan soo import garaystay kilibyadii consequence-gii markaan kilibyadaas soo import garaysto aan doorto waxaan leeyahay right click kadibna waxaan tegayaa meesha ay proxy ay ku qoran tahay kadibna waxaan leeyahay create proxy markaan dhaho waxaan dooranayaa QuickTime kadibna waxaan dooranayaa Cineform low resolution proxy ayaan dooranayaa tan Cineformkaas Mac iyo PC labadaba ku shaqeeya marka kaasaan dooranayaa destination-kana wuxuu ku leeyahay xagee baad dhiganaysaa next original media in proxy folder waxaad dhigataa meeshii aad horey ugu soo save garaystay waxaan rabaa inaan meel cusub dhigto browse ayaan leeyahay kanaan dooranayaa browse ayaan leeyahay kadibna waxaan tegayaa meeshii folderkii ay ugu jireen folder aan ugu talagalay proxies ayaa jira kadibna waxaan leeyahay select folder waad aragtaan Premiere Pro jimicsi proxies kadibna waxaan leeyahay okay isla okay markaan ku dhufto waxaa ii soo baxaya program kale aan hore u soo qaadanay oo wax lagu export gareeyo oo la dhaho Adobe Media Encoder muxuu ku sameynayaa proxy ayuu ku sameynayaa mar allaale markuu sameeyo proxy toos ayuu isticmaali kartaa marka low resolution buu ku sameynayaa okay markaan dhahno haddii aan Adobe Media Encoder aan kugu jirin waxaad sameynaysaa linkiga aan kugu dhigaya kii horena linkiga ayaan dhigay waad la soo degi kartaa qaabka loola soo degayna waa qaab fudud weeye okay markaan dhaho waad aragtaa haddaan kan cancelo waad aragtaa Adobe Media Encoder baa la soo kiciyo markii Adobe Media Encoder la soo kiciyo waad aragtaa isagaa diyaarinaya muuqaaladii halkan aad ka arki kartaa markuu dhammeeyo proxy already waa lagu sameeyey mid kasta wuu dhammaynayaa marka dadku badanaa proxy waxay uga cararaan waqti dheer ayuu qaataa marka waqtiga dheer uu qaadanayo iyo dhibaatada kuu imaanaysa oo jarjaridaadii kaaga imaanaysa waxaa laga yaabaa meel aadan rabin inaad ka jarto inaad iska jarto oo isku xirto marka waxaa fiican haddaad rabto inaad wax edit garayso saacad kadibna iska shaatag kusoo laabo proxy oo ku samaysmay kadibna hawsha gal si fudud u dhamayso kadibna export u dir waxayba already ku hagaagsan yihiin laakiin haddaad isku jam garayso waqtigii wax xun baa soo baxaya hadhow meeshii resultigii wuxuu noqonayaa wax crash aan loo baahnayn marka saasaan kuula talinaa proxy isticmaal haddii ay culus yihiin kilibyada aad markaa ku edit garanayso barnaamijka Premiere Pro markuu sameeyo proxy kan iska xiraysaa kadibna Premiere Pro ayaa la soo kacaysaa marka weli waa sidiisii qaabkee ku ogaanaya marka in proxy ay shaqeynayo waad aragtaa waxaan tegayaa calaamadda haddaan eegno hadaynu halka ka eegno meesha proxieska waad aragtaan muuqaaladii oo daciifa ayaa la sameeyey marka waxaan sameynaynaa waxaan tegaynaa program monitor-ka calaamadda ay ku qoran tahay button editor ayaan ku dhufanaa plus kadibna juggle proxies ayaynu dooranaynaa kadibna xaggan kusoo jeedaynaa already aniga waa ii yaalay markaasaa usoo jeedid
waxaad arkaysaa halkan isoo ku yaala. Marka toggle boxes ayaad ku dhufanaysaa, blue ayaa ka dhigaysaa. Marka haddaynu play dhahno hadeer, waad aragtaa muuqaalkeenii toos ayuu u soconayaa. marka halka aad toggle box isticmaasho already wax kasta way ku saxan yihiin, muuqaalkaaga waa lagu soo khafiifiyey, si tartiib ah ay ku isticmaalaysaa. haddaynu tagno push up ka sameynayay, waad aragtaan si toos ayuu push up ku sameynaya, waxbaa ka waran daciifka ku jira, waad aragtaan si toos ayuu baxayaa. ninkan kale oo jimicsanaya, waad aragtaan wax macnaha kuma jiraan istaaga ama program monitorka, wax cilada kuma wax istaagtaaga kuma jiraan oo program monitorka ka mid ah. markaad dhamaystid waxaa leedahay file, kadibna export ayaa leedahay, media ayaa leedahay. muuqaalkaaga already waad soo dhamaystay, kadib halka waxaa ka dhiganaysaa H264 kana rabtid baa ka dhiganaysaa. tusaale ahaan YouTube ayaa wadaa 700 waxaan ka dhigaynaa 20 pixel, kadibna Q ayaa gelinaysaa, meesha rabta ayaa keenaysaa, ama waxaad keenaysaa waxa meesha loo yaqaano, waxaad keenaysaa export caadi. marka haddaan ku tuso muuqaalkiisa uu soo baxay, okay, markaan dhaho waad aragtaa muuqaalkii waa saafi, wax baalkiya kuma jiraan. inka jimicsanay waad aragtaa. okay, aanu proxy ka sameynay, kadibna aanu jarjaranay, kadibna aanu export ku sameynay. marka qaabka ayaad u adeegsanaysaa proxy. haddii uu yahay muuqaalkaagu muuqaal culus, waxaa kuu fiican inaad adeegsato proxy si aad wax kasta si waadix ah ugu aragtid. waxaan rajeynayaa inaad aad u fahantay. waxaynu balanaa muuqaalkan muuqaalkayga iyo maalin kale.